runtii haddee waxaa muuqataa hadda aniga meesha waxaan ku lahay afuraan ku lahay anoo usii socdaa qaraxa meesha ka dhacayaan kasoo laabtay haddee waxaad moodaaba wada shaqayn aa jirta oo markaasi in amni la sugo iska daaye waxaa meesha ka muuqata inay gacan weyn helayaan argagixisadu taasaa meesha ka muuqata haddee taasaaba nasiib daraa maxaa yeelay maalintii xasan sheekh oo xukunkan qabsaday ilaa maanta baabuur oo qarax sida iyo mid kale oo ciidan wato oo ka dabagelaya meeshi la qarxiyey oo markaas isku hal nuuca ayaaba operationki ku socdaa cid fashilaysana male waxaa la rabaa ma ogtahay taatikadii shala lagu dilay in maalin kale lagugu sii dilo adduunka meelay ka jirta ma jirta marka waxaaba kuugu daliila hal operation 4 sano socda cid fashilaysana ma jirto marka hadda taasi waxay ku tusay marka inay tahay arrin mataqaanaa waxqabad la-aan iyo inaan aysan jirin ammaano inaynan jirin oo dadka cid ilaalaysa haba yaraatee aysan jirin. waa gartay wada shaqaynta ka dhawaajisay noo jilciyey maxaad ula jeedaa hadde mar haddaanba la fashilihayn sawjaanis lama siin oo ay meeshay doonaan ay qaraxa kula beegtaan sow in la fashiliyo maahan oo dhex baabuurku markau maraayo sow in la istoob gareeyo maahan oo ilan shacabka hantidiisa iyo mataqaanaa naftiisa waxaa ka mas-uula sow maahan oy xukuumaday ka samaysteen oo xukuumaddaasaa la rabaa inay badbaadiso waa waajib qaran oo laga rabo dawladdu inay dadka naftiisa iyo xoolihiisa inay ammaan gelishaa laga rabaa mar hadday suurtageli weyda hadde meeshaas maxaad adiga ka dareemaysaa marka waxaan ku fahmay in gacan weyn ay ka helayaan madaxda dawladda al-shabaab information ugu yaraan information buuxay heestaan oo ay ka helayaan gudaha xukuumadda. waa gartay marka maxaa lagu caddayn karaa in arrintan ay jirto waxaa lagu cadday karaa hadde non stop waay cadowgii lama fashilinaayo so uu soo baxayay targetkiisi ou gaara. waa gartay marka haddee taasna muddo 4 sana in magaaladan lagu nabday waayo oo cadowgii laga ciribtiri waayo oo maalin walba ay mataqaanaa shacab soomaaliyeed dhibaato loo geysto oo dad badan oo waxgarad iyo siyaasiyiin iyo maato isugu jira nooc kastoo bulshada kamida inay ay mataqaanaa ku garab rogmaan oy lagu laayo oo mas-uuliyaddaasna ayna meel fuulin hadda taasi waxaa waaye waaba arkaya waa nasiib darro oo u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed marka hadde la xisaabtanna ma jiriyo shacabkiina inta baqdimu ku dhacday ayay jiha wareersan yihiin marka kolleyto aad iyo aadaan uga xunnahay waxaana ugu baaqaa inay mas-uuliyadda amba la qaado amba la iska casilo maxaa yeelay shacabkaaga in maalin walba la gumaado xilaan u hayaana aad tidhaahdo waa arrin aad iyo aad nasiib darraa oo aan la qaado karin oo guul darro iyo wax walba oo bini aadan oo ka yaqyaqsoodo ayaa meesha ku jira marka waxaan dhihi lahaa meel haddaad joogto waxaa la yidhi amba maqnaw amba muuqo inaad muuqato iyo inaad maha ka maqan taha wax u dhexeeya male waxaana la rabaa shacabka in la ilaaliyo naftiisa iyo hantidiisa